kulanti wanaagsan iyo marka la Ramadaan 18 ما شاء الله رمضان 18 بمرسها رمضان 18 بريس عافمد بين نقصو غارسيه إلهي الحمد لله رب العالمين بل waxaan rabnaa maanta inaan jawiga guud ee xanuunka corona virus ee adduunkii oo dhan waxaan ku kala rogay bisharay markaynu ka hadalno dhibaatada uu geystay bal in wixii aad ka xasuusatid barma inaan bal daawadayaasheena inuu xiraan halkay nagala socda inaan u yara dul marno waxyaabo fara badan baynu xasuusanahay oo kale xanuunkan uu saameynayo uu geystay horta dadkii guryihii fadhiisi dadkii yagi isbar waxaan ku yiri dadkan waxaan ku leeyahay dadka naftoodii baa isbartay qofkii isaga laftarkiisa baa isbartay isaga qudhiisa ayaa waqti sula ah oo isbartay baan aaminsanahay familigiisa iyo heladiisa buu bartay reerab nasashana wuu helay deelaa nasashana wuu helay inkasta iyaduna ay side effectgeeda leedahay nasashada la fahaanteeda oo dadkii markay guryihii fadhiisteen iglan waxa dhacday in ay qaar fara badan xanuunkii corona mooyaane xanuuna kalena ay ku dhaceen oo la leeyahay cholesterol iyo qofkii soo markii soo hore diabetes iyo cholesterol iyo waxba aan lahayn iyo high blood pressure iyo qofkii exercise markuu yaraado oo qofkii lack of exercise ay ku dhacdo guriga uu fadhiyo saameynteeda kulay iyaduna ay yeelan ay leedahay marka Soomaalideena iyo dadkeena waxaan leeyahay exercise qofku ha sameeyo sidaan horeba idin kula wadaagnay aniga iyo England waxaan gurigan ku dhex sameynaa orodka ku haysanaa caadi ahaan waa loo galiyo inta wata laga hadlayo laguma diidana hadaa saxro anaga gymka halkaas noo saaran yahay waa kaas absolutely saasun baan ugu ordaynaa marka waa inaad nala socotaan waxyaabaha talada ayaan idin soo jeedina marka dadkaas ina daawanaya ee xanuunadaasi ku dhacay special maxaad oran lahayd sidee sameeyaa maxay isku daweeyeen qofka cuntada markuu cuno England hadaan aadan shiidin qofku usually exercise bu sameyn jiray exercise ku xataa kaliya maaha qofkii inuu exercise gym iyo ordiyo waxa uu fahmo suuqaad soo wareegaysa exercise bay hayd hawadiya qorraxda soo qaadanaysa exercise bay socodkii tirada badnaa exercise waa xaafadiyaad booqan jirtay tareenada basaska aad degi jirtay raaci jirtay exercise bay haayeen wixii markay meesha ka baxaan hal marna way iswada taagan ciladeeda leedahay marka waxaad sameynaysan insha Allah qofku looma diidina suuqa iyo baaga iyo meelaha moogtahay exercise-kiina qofkii soo sameeyo familiyadiis wada dul fadhiyayna kolleegana qaar badan iyagoo oo heshiisa oo isbartay oo lahaa loo walaalba sidan baad u wanaagsan noocanba kumaan moodanayba kale dabada soo baxayaan taaniga kala dhufo ilaa kala dhufo 17 miskool ba kale local police kooda ku dhacay oo maraynaya marka waxa weeye waxa loo yaqaan shaqaqada qoyska shaqaqada guriga ee domestic violence iyadana halkii ugu sareysay taariikhda ayay gaadhay marka caruurtii nimankii remote isku haystaan baa la leeyahay balaaya dhacay baa la leeyahay xaaladuhu halkaasna aad baa looga dayrinaya hadaba corona iyo waxyaabahaas uu dadka baray dad maqli jirtay heestiraada wixii baday jacaylku wixii baray ka sii daran tan weeyaan imika oo corona wuxuuna baray baa ka sii daran dadka casharo fara badan buu baray cilmiyo fara badan buu ga tagayaa waxyaabo fara badan baa runtii garanaysa marka taa waynu soo laaban doonaa dalkan Ingiriiska ku noolnahay dadkii guryaha markay fadhiyaan waxa jirta ganacsiyo fara badan oo kacaya waxa jirta businessyada yaryar small businesskii oo meesha ka bixi doona taariikhda markii ugu horeysay dad baa benefit iyo universal credit iyo gali doono weligood aan gelin xaaladii ku xumaanaysa dawladdu markaa intaasoo shaqaalaha bay mushaar siisaa sii fadhiga guryaha la sii fadhiya iyada caqabad weyn buu ku yahay aad oo taxki magaaladii ummadii oo dhan baa ugu soo jeesatay la dawladda cashuurtina way istaagaysaa dawladina lacag bay shacabkii baa dawladii focus ka saaray absolutely 78 shaqaalaha mushaharkooda guryaha fadhiya iyaga bixisa marka taa waxa pressure ka taagan yahay sidaan haddaba aragnay ee arinteedu socoto furitaanka dib u furka meelo fara badan oo restaurantadii kamid oo leeyahay la kala fogaado laakiin hal la furo social distance-ka hal la sameeyo waxa kamid ah iskuuladii oo kale oo iyaguna miiska saaran oo arintoodii taagan tahay caruurta hadaba iskuulada hooyadii aabahay daawanaya waxaan leeyahay kuma qasbanidin ay ilmahaagu ay tagaan waana sida sharcigu u yahay ilaa iyo September hadaad u baahan tahay ilmahaagu guriga uu ku joogi karaa guriga waxbarashada gurigana uu sameyn karaayo home learning baad u sameyn kartaa marka
halka dhakhaatiirtuna iyagu dhankooda ay ka dayrinayaan haddii si fudud sidii markii hore laysu yaro dhex galo inuu xanuunku hal mar boodayo bartiisii ku noqonayo marka waalid ahaan waxaa ku wanaagsan intuu ilmahaagu kuusoo waaridi laha hadiyadaadan diyaar u ahayn inuu kolley haba geysana hayso ku joogo haa inta wadanka adiga maxaa kaa galay ma KFC ama McDonald's ka kacaya maxaa shaqadaada maahe adiga ilmahaaga inaysan waxna kuu barto aadan geynina iskuulkii oonu dhibaato aanu kasoo qaadin taas waxyaabaha jirta taxadarka la taxadarayo inta la yidhaahdo xanuunku wuu baxay xataa yaanu noqonin mid dadku markiiba u qaataan wuu baxay muddo ayuu kale sii riiq dheeraanaya sii jiitamaya dee laf jabtay sideedii maaha marka muddo aan noqono muddo dad iskooba oo maxaan dhaday ilaaliyo insha Allah bisha Ramadaan fadligeedana Ilaahay ha inoogu raxmado ciidihiiba iglanay kamida wadankan oo ciidihii dee baagaga iyo meelaha waaweyn iyo masaajidada lagu wada ciidi jiray la isugu yimin jiray ha ayaa jira waxaad arkaysaa Soomaalida iyagoo koodhanaya maxaa masaajidada iyo meesha guriga Ilaahay loo diidaya in la isugu yimaado meel cuntaduba way furan yihiin hada Ilaahay meel kasta wuu joogaa gurigaaga dad ku dhex caabid dad ku dhex tukatana Ilaahay uu ka aqbalaya uu ku arkay meel kasta Ilaahay wuu joogaa laakiin cuntada meel walba ma taalo soo cuntada dad dukaankeeda la furin oo dan tagin dee waad dhimanaysaa laakiin qolkaaga haddaad masaajidka tagi weydo Ilaahay macnay cibaadada kaamu aqbalin kama aha meel kasta in taaganahay second kasta wax kasta waxa maskaxdana ku jira rabbi waa kala socda soo masaajidada waxyaabaha loo xiray waxay kamid tahay dadka ku kulmaya dee markaa faraha badan leh ciidiina imaatinkii dalkani aad buu koobnaanaya soo waxay la tahay dad fara badan ayaan dharkii ciidaba meel soo iibsanin mid kale waxa kaaga soo daran wadankan waaba dukaamadii dharku waaba xiran yihiinba dad fara badan inta kulli xoolayo mar haddana cidna u tagaynin maxaa khamiiska saacadan ka xiran iyo meel macawistiisa iyo guriga ku dhex tukan doonaa ay la tahay marka qudina waa leedin hawl yareeyay macawistiina garanka salaada guriga iyadaaba ajar badan masha Allah iska tukada xaasaskiina iyo haweenka tujiya insha Allah taala iglan adigu maxaa kamid ah waxyaabaha la xasuusato intii oo imika karoonuhu nagula kowsatay horta karooni horta anigu diyaaradii ugu dambeysay ee Kenya ka soo kacda ee wadankan ka kacda ama soo fadhiisatan horta la socday intii aan halkan imina diiwaanigan qolkan aan ku jiraa oo ku xidhanahay marka laakiin jawiga guud markaan eegno dhibaatooyinka horta dee awood alle horta dee ma aha wax laga hadli karo alxamdulillahi rabbil caalamiin intii dhimatay ee loogu talagalay corona inay raacdo waa raacdayba inta loogu talagalay maxay corona waa labo corona waa labo bis saddexaad baa la tireegla ama waa dhiman ama waa noolaa kulama noolaanayo way macnaheedu sida xanuunada qaar ma aragtay waxaan maxaa u dhaxayn lahaa waan ognahay oo corona qofku ku dhaca ama uu ka kacaya ama uu u dhimanayaa maxaa iglan u dhaxay hadii sii jiitantu kula noolaado kula noolaan maayo sida HIV-ga iyo TB-da iyo macaanka iyo dhiikarka iyo sii jiitan xanuunada macsiyada oo dhan maaha isagu waa fariida ama kaw ama kala tagtay ama ku kaxaysay ama ka tag marka horta quwadda rabbi awoodda rabbi waynu aragnaa hal mid inaynu qof waliba uu arkay macnaha dad xataa ay ka yare baahsanayd ba imka ku soo baraarugay ya oo quwadda ilaahay dee tusay marka waxaan leenahay horta intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii loogu talagalayna bishana sideedaba safar baa la odhanayay bishan bishi koraysay marka safar mise shabcaan soon eri baa la dhahaa sax خلدرين كل دي يا لكن ولا لدي بمشي سيدا أن كم مقلي إنك سو علمي قاس بدن أنا ليس لكن سيدا أن كم مقلي وبيش سنة دتك لك لصفيه صدح ميرادو لين صدح مركز دتك صدح ميرادو لقد يقول ميل باتكتان ميل باتكتان معناها مركا ومركي دتك اللي كل قرش كورونا يبيشي اسكسي وسعتي بعد كل ما مركا بيشي أول بعد دتك السعون تراني حنون صف مرينا وأدو ودبل ودي ودبل ودو إلى هاي دير سبحانه وتعالى قفكم marka ama guri ku jiro bishaaray hal midna ku sheegaya ama guri hal lagu jiro ama safar lagu keen ama si kasta hadii lagu qoray waxaan ku horta joogmaysid meeldoodii kana sheekadayd corona daaqaduhu ka soo galana dadka hawaalin corona wallahi waxay daaqadu laakiin waxa man ogahay ba anigu hal mid baan ku fadhiyaaba anigu waxaan ku fadhiyaa in la is ilaaliyo oo la taxadiro oo wax la yidhi taxadiro islaaliye laakiin markii wixii lagu qoray bishaaroy wallahi beenad uga badbaadeen oo ka hayo wallahi inaad waxaan ku kuna dhimanayn haddaan ilaahay ku qorin marka horta dee adaash dhameeyay sheekadii guud
maxaa la yidhahdaa ii sheegiyo dee jawgiisu u dhacay laakiin hal mid baa anagu ka ogaaday waa tii la yidhi laba ah dukaanada isu jirsada maxay laba mitir ha markaas waxaan maqli jiray Soomaaliya dumarku markay islaayaan show wal cilmi baa ku duugnaa ee weynaan weyn hadana dhulka ku mitirin naaya hello ha halkeed joogta wallahi in baan kuuri aanan ku mitirin baan ku dhulka bal waxaan kuuri labadaada mitir ardayda uga soo baxa labada mitir ku qaadi weydo wallahi inaan qaadi labada mitir iyo wallahi inaan dhulka ku mitirin show mitirku mujisu waa kan imkan loo mitri halkaas mitirka sorry chugum sorry bag takaymat soo dhaaftay goobta wallahi dumarku xigmad baa wallahi Soomaaliya ku duugrin maxay labadaada mitir wallahi inaan dhulka laba mitir kaaga dhigay nala socda insha Allah la socda tan iyo kulan dambe anigu horta nabadgelyo aan idin leeyahay maca salaama aniguna waa kaas nabadgeliyay waay